السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أدري حاجة وحيدة هاي مسجد كوي دلك صوماليا مسجد كسبايسية لو جيدا مساجد كم واحدة بلان يعني ومساجد آدد وين آدي أدو بلان أي كنت كان ما أنت عيدنا هلك كذا ومساجد آدد واحدة مساجد كدلك صوماليا خاصة عاصمة مقدشو نرفيغي إن شاء الله تعالى. قال حياة وقلبي إليه تمال مع الله تحلو إليه تبتل صياما دعاء الصلاة حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل وقلبي إليه تبتل قروحda badan weynida badan yani aan weligay iimaan maanta ka hor inkastoo qadish aan joogi jiray ma sha Allah taala aadna ugu faraxsanahay maanta culimada iyo dadka gacanta ku hayaan la kulmay masaajidkan taariikhda aniga iyo dhalinyarada maasha Allah daawanaysa bal noo sheekay jazakumullah khayran. bismillah horta masjidka waxaa dhisay dowladda Sacuudiga gaar ahaan Boqor Faysal bin Abdul Aziz sanadkii la dhisana waxay ahayd 1976 وقت آد وهرية إن بدنا نجمده أيضاً على هذيك بعد تجرتين صعبة ما شاء الله. وهي أنت تقدم بيوضنا كصومالي أيام معمول يسي وقعنت كويسة مركز دولة أي نعضي إلا هذا رغبة كسود ذلك ما شاء الله إلا كأول أنا كل لكن سؤال شو حيته هاي Soomaali sala socono xaafad kasto mawlaca masjid riisa ku taal masjidka weynka badan ma masjidka ugu weyn Soomaali miya amse wal badan نعم مسجد كصومالي ugu weyn waa ما شاء الله inta hada la ogyahay bal waxa la yiraahdaa geeska Afrika ugu weyn ما شاء الله isha ma qabanaysa qaybta ma qayb dumarka ma qaybta ra'iisiga ugu weyn waaye inta badan hada dumarka ما شاء الله hadii loo baahdana ciidaha oo kale rag iyo dumarka waa loo kala jaraa qaybta ragga ku dukada qaybta dumarka ayaa ku dukada ما شاء الله qaybtaas hada soo marno xiraabka ugu yaalana waa qaybta VIP da ahayd waaye صح عادي oo ma garanaysa hadda jimcooyinka iyo lagu ogaa iyo shanta salaad حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة حياتي مع الله أجمل وقلبي إليه تبتل حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة intee joognaa hadda waxaan joognaa isbahaysiga waxaan naga dambeysay masaajidka isbahaysiga islaamka marka vlog inta idinkaga soo diyaarinayna insha Allah waxa la dhihi jiray hadeertan salaadii hadda la garaaya sida maqlaysaanba waxa u maleynayaa inay idin soo gaarayo takbiirtii farxad ku ciid dhamaantii insha Allah nala daawada vloggeena iyo sidoo ahaan مصراي بس كده دحركو ساعه ما دمستي ما دمستي dhame wiil baad ku duubo على ساكا يدو وريغا ودالي اسمان انا فلوغ اسمين انا فلوغ يسي لو هذاك دحش خسرو فتي ضوبنا واركاي وركاس شيكا isha ma qabanaysa qaybta ma qayb dumarka ma qaybta ra'iisiga ugu weyn waaye asxaabta wajeedin ani ismahan masaajidka soo galnay gudaha masaajidka hadda si toos ugu jirnaa hal dhigi jiray dadka yani zaid mu iimaanin wali dad yara hadda jooga masaajidka wali dadku way iimaanayaan insha Allah nala daawada masaajidka muuqaaladii aan ka soo duubay insha Allah gudihiisa marka soo galay ila daawada
تبتل صيام الدعاء حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صيام الدعاء والصلاة حياتي مع الله حياتي مع الله أجمل حياة وقلبي إليه تبتل إيش ما قوانيس خيبتها ما خيب دمك من qaybtaan waa qaybta ra'iisiga ugu weyn waaye inta badan hadda dumarka haddii loo baahdana ciidaha oo kaleeto ragga iyo dumarka waa loo kala jaraa qaybta hore ragga ku dukada qaybta dambe dumarka ayaa ku dukada masha Allah qaybtaas hadda soo marno xiraabka حياتي مع الله أجمل halkana waa masjidka isbaahaysiga ay soo buuxdhaafiyeen kumayaal iyo kumayaal shacabka Soomaaliyeed isuna soo diyaariyay in ay tukadaan salaada ciidulfitriga oo guud ahaanba laga tukaday gayiga ay Soomaalidu degto iyo qaar ka mid ah wadamada Islaamka shacabka Soomaaliyeed ee saaka ku tukanaya masjidka isbaahaysiga magaalada Muqdisho waa kuwa aad u faraxsan waana kuwan qaar ka mid ah oo salaamaya asxaabtooda eheladooda meel kasta oo adduunka ka joogaan كل عام وأنتم بخير مقعي ومحمد حسن آدم سبتر وعن هالكان كسلام يا وهرين هو يدي معان سفيه محمد حسن ولا لهي فاطمة حسن مريم حسن أو بكر حسن waxaan leeyahay iyo waxaan ka salaamayaa halkan xaaskayga Zahra Abdurrahman iyo gabadhayda Safiya Maxamed Xasan salaanta oo aan ka tagay inaan ka hormariyana aad u jeclaa aabay Xasan Aadan Samatar halkan ka salaamayaa waxaan leeyahay meel kasto oo wada joogno familkayna ku wada ciid wanaagsan bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Abubakar Xasan Aadan Samatar halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ee adduunka daafeeda ka joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan sidoo kale salaamayaa hooyaday aad ku jeclahay Safiya Maxamed Xasan iyo aabahay Xasan Aadan Samatar iyo dhammaan reer Aadan Samatar waxaan leeyahay ciid wanaagsan wali daawadayaal waxaad nagala socotaan xarunta dhexe telefishinka qaranka ku leeyahay magaalada Muqdisho waxaanu ku dhex jiraa maanta iyo ciidda annagoo ku sugan masjidka isbaahaysiga oo maanta ay dad fara badan ay isugu yimaadeen kuna ciideen maanta waa maalin kale isbaahaysigu ka duwan yahay maalmihii kale wali dhagaystayaal farkamo qodna dadka eheladooda iyo asxaabtooda iyo qaraabadooda salaamaya bismillaah magacaygu waa Samiir Aadan waxaan halka uga hambaliyanayaa dhammaan ummadda islaamka meel walba joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr ciidan ciideeda kala nabad bashbash ha saaxiibteeda waxa salaamaya Amiira iyo waxa salaamaya saaxiibteeda kala Iqra ciidda ciidulfitriga ayaa laga tukaday guud ahaanba dalka Soomaaliya iyadoo madaxda Soomaaliyeedna ay dhammaantoodba shacabka Soomaaliyeed la wadaageen hambaliyada ciidda iyagoo sidoo kalena ugu duceeyay in uu Ilaahay ka aqbalo soonkii iyo salaadii وقلبي إليه تبتل